muuqaalkan waxaa si weyn u hadal haya maanta warbaahinta dalka Turkiga waana dabcan shil gaari oo ka dhacay magaalada Istanbul kaas oo uu ku geeriyooday muwaadin dalkaas u dhashay laakiin arinta sheekadan naga qusaysa ayaa waxay tahay in shilkan sababtiisa uu lahaa sida warbaahintu ay sheegayaan wiil uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Sheekh kaas oo muddo dheer ku noolaa dalka Turkiga macluumaadka warbaahintu ay baahiyeen sidaas oo kale waxaa qayb ka ah in gaariga uu ku galay wiilka madaxweyne Xasan Sheekh uu markaas u diiwaan gashnaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga dhacdadaana warar kala duwan ayaa ka soo baxaya oo ku saabsan xilliga ay dhacday macluumaadka qaar waxay sheegayaan in dhacdadan ay dhacday 30kii bishii November ee aan ku soo gudubnay laakiin waxa hadda dib u soo cusboonaysiiyay ay tahay in muwaadinkii shilkaasi markaasi ku dhaawacmay ugu dambeyn maanta uu geeriyooday sidaasina sheekadan mar kale ay markaasi banaanka ugu soo baxday wiilka madaxweynaha Soomaaliya ilaa hadda macluumaadka aan hayno ma cadeynayaan in uu xiran yahay in kale laakiin waxaa la sheegay in booliska dalka Turkiga su'aal ay weydiinayaan ku saabsan dhacdada shilkan iyadoo baaritaano xoog leh ay socdaan oo ilaa hadda baaritaano ku saabsan shilkan iyo habka uu dhacay ay socdaan inkastoo muuqaalkan la helay oo dabcan ay nooga muuqanayaan in markaasi gaarigu uu gadaal kaga imaanayo mootada oo dabcan ay muuqato nin inuu saarnaa sidaasina shilkan uu ku dhacay inkastoo ilaa hadda macluumaad intaas si dhaafsiisan aan la heli karin haddana wali baaritaano ayaa socda waxaana laga warsugayaa boolisku in ay warbixin sax ah ka soo saaraan iyadoo sidaas oo kalena qoyska madaxweynuhu ilaa hadda dhacdadan aanay ka hadlin madaxweynaha Soomaaliya qayb ka mid wiilashiisu waxa ay qayb ka yihiin oo ay ka qayb qaadanayaan halganka dib u xoreynta ee argagixisada looga saarayo dalka oo idil waxaana dabcan marar kala duwan warbaahinta ka soo muuqday wiil uu dhalay madaxweynaha oo isagu madaxweynaha ku helinaya howlgalladii uu madaxweyne Xasan Sheekh qaybta ka ahaa ee ka dhacayay gobollo ka mid ah dalka si gaar ah galmudug markii madaxweynuhu uu tagay ayuu wiilkan la socday oo warbaahintu markaasi ay muuqaalkiisa heshay magaalada Istanbul kuma cusba in shil gaar uu ka dhaco laakiin waxa dhacdadan saameynta u yeelay ee kaliftay warbaahinta dalka Turkiga inay hadal hayaan sidaas oo kalena baraha bulshada Soomaalida lagu hadal hayo ayaa waxay tahay in qofka sababta uu ahaa macluumaadka la helayo ay sheegayaan inuu yahay wiil uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya taas ayaana keentay in warbaahintu ay si weyn u hadal hayaan maqaalo kala duwan ayayna ka qoreen oo markaasi laga akhrisan karo website-yada qaar ee dalka Turkiga iyadoo markaasi laakiin ay aad u yar tahay macluumaadka saxda ah ee shilkan gaari laga heli karo laakiin booliska iyo natiijada ay soo saaraan ayaa laga warsugayaa dhacdadan wali safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga kama hadlin qoyska madaxweynuhuna kama hadlin wixii macluumaad ay soo kordhana halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii Allah uu dilo u raali ka noqdo